kulanti wanaagsan khiyaarta wada naga dhageysanaysa waa duhurnimo khamiis ah 26 bisha April qodobada barnaamijka maanta aan idinku haynana waxa kamid ah boqor buur madow oo maxkamad ay ku xukuntay 5 sanadood oo xabsi ah madaxa howlgalka AMISOM oo sheegay in dhamaadka sanadkan ay kun askari ka saari doonaan ciidanka nabad ilaalinta waxa kale oo barnaamijka aad ku maqli doontaan aniga sanadkayga waa 60 jir hooyaday waa yeelo 9 jirtan waa haya إلا حال اللي سعودينا أنا أنت أسكت كرنا عنا قولي لك جبي واحد والي واحد مرة أي واحد هيسن إلى بر مره وقار كمل هدتك دجنا حافظ بولا قديم مجالات جارسة أو كقحي جريه هذا كدب مركي وبيجي وكسر فتهاي وحكلوا برنامج كاتكم مغلي دونتان كلن كما ده حدا لبضة كوريا يوررك عيارها ظهور wanaagsan dhageystayaal mar kale qodobadaas ayaan barnaamijka idinku haynaa Axmed Badar ayaa isku soo dubiriday waxaan soo ku bilaabaynaa wararka caalamka Ciise Xaaji Cabdillah ayaa noo waramaya maasanid Farax madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa noqon doona hogaamiyihii ugu horeeyay Kuuriyada Waqooyi oo ka tallaaba xadka Kuuriyada Koonfureed tan iyo dhamaadkii dagaalka Kuuriya ee 1953 labada wadanba waxay shaaca ka qaadeen wafdiyada wehelini doono hogaamiyaashooda kulankan ayaa ka dhici doona aaga militariga ka cagan maalinta Jimcaha ah wadahadalkan naadirka ah ayaa imaanaya bilo uu soo hagaagaya cilaaqaadka labada dal waxa uu wadada u xaaraya wadahadalada la qorsheeyay inay yeeshaan Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi wadaadka ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa dalalka muslimiinta ka codsaday inay u midoobaan Mareykanka iyo waxa uu ugu yeeray qaabdarada caalamka hadalkiisa ayaa ku soo aadaya kadib booqashada madaxweynaha Faransiiska ee Washington oo isku dayay inuu ku qanciyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuusan ka bixin heshiiska nuclearka ee Iran xisbiga talada haya Armenia ayaa sheegay in uu diyaar u yahay inay wadahadallo ay la yeeshaan hogaamiyaasha mucaaradka shuruud la'aan iyadoo ay jirto dibadbaxyo looga soo horjeedo xisbiga talada haya dibadbaxyo dheeraad ah ayaa caasimada Yerevan maanta ka dhacaya laba maalin ka hor ra'iisul wasaaraha dalkaasi Sheikh Sargasian ayaa iska casilay xilka ra'iisul wasaarnimada taasi oo jawaab u ahayd mowjado dibadbaxyo ah maamulka Nigeria ayaa sheegay in 162 caruur laga soo badbaadiyay wax loogu yeeray warshad caruurta sameysay iyo laba xarun oo ogoomaha ah oo aan diiwaan gashanayn mid ka mid ah saraakiisha howlgalkaasi sameeyay ayaa sheegay in caruurta la soo badbaadiyay la faraxumeeyay ugu dambeyntina tiro badan oo caruur dhigata dugsi hoose ayaa dhintay kadib markii baskooda uu jiiray tareen maamulka ayaa sheegaya in baska iskoolka uu ka tallaabay waddo aan calaamadaysnayn oo tareenka uu leeyahay kadibna shilkaasi waxaa ku dhintay ardaydaasi ee gobolka Uttar Pradesh ee dalka Hindiya warkii dunidana waan naga intaas dib idin kugu celiyo Faarax Lamaane Ciise aad ayuu u mahadsan yahay u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa ayaa maanta 5 sanadood oo xabsi ah waxa ay ku xukuntay boqor Cismaan Aw Maxamuud Buur Madow boqorka ayaa arinta ugu weyn ee loo haysto waxa ay tahay ka qaybgalkii uu degmada Carmo kaga qayb galay bishan gudaheeda xaflad dhaqameed lagu caleema saarayay beeldaajaha deegaankaas wariyaha BBC-da Axmed Saciid Ciga ayaa xukunka boqor Buur Madow goor dhaweyd iga waramay farxow iyarka horintayna nimaka idaacada soo galin ayaa xeeraliyaha guud ee Soomaaliland Xasan Maxamed Aadan wuxuu ii xaqiijiyay oo telefonkaygu xaqiijiyay in boqor Cismaan Aw Maxamuud Buur Madow maxkamadda gobolka Hargeysa ay ku xukuntay oo ku riday 5 sano oo xarig ah xeeraliyaha wuxuu ii sheegay sidoo hadalka u dhigay in boqor Cismaan Aw Maxamuud Buur Madow in lagu helay 3 dambi oo labada hore ay yihiin in uu hadallo sidoo hadalka u dhigay daawac ku madax banaanida Soomaaliland uu ka jeediyay dhawaan maruu munaasabad dhaqan uu kaga qayb galay Puntland iyo ina uu been abuur ka sameeyay madaxweynaha Soomaaliland oo munaasabadaasi Puntland uu ka sheegay ina uu wakiil uu kaga yahay dawladda iyo madaxweynaha iyo madax dhaqameedka qodobka saddexaad wuxuu ii sheegay ina uu intii maxkamadda lagu jiray maanta uu aflagaadeeyay maxkamadda oo uu xaqiray isagoo oo yiri xaakimkii ku yiri sheeg waa lagu soo dhiibay xukunka waxa lagu xukumayo marka 5 sano ayaa lagu xukumay in sidaan ka warqabo boqor Cismaan Aw Maxamuud Buur Madow maanta in abara 12 iyo dheeraad ayaan la hadlay isagoo markaa ii sheegay maxkamadda in uu joogo markaa wuxuu ii sheegay in maanta ay tahay procedure-kii oo dabeetana maxkamadiisa dabeetana dhageysiga waqtiga dhageysiga gidi ay uu soo sheegi doonaan laakiin ilaa iyo haatan imka sida arintani ay u dhacday ee degdega ah in faahfaahinteedu wala ma soo bixin garyaqaan barkhad jaamacaare oo markii hore la ii sheegay in uu qareen u yahay oo u doodayo boqor Cismaan Aw Maxamuud Buur Madowna wuxuu ii sheegay inaan wax wakaalada siinin oo aanu u ahayn qareen marka sidaasi ay arintu u dhacday mahadsanid Axmed
dhinaca kalena xildhibaan ibraahim caraale ruush oo ah xildhibaanka boqorka horena u damiintay goobjoogna u ahaa xukunka ayaa b b c da wuxuu u sheegay in waxa dhacay maanta ay tahay waa sida uu hadalka u dhigaye wax aan ku fiicnayn dowladnimada iyo madax bannaanida garsoorka somalilan islamarkaana aan loo ogolaan boqorka inuu isdifaaco qodobkaasna dadka ra'yigooda facebooka kaga soo dhiibtay waxaa ka mid ah cali faarax xaashi oo burco ka soo qoray oo leh waa soo dhoweynaya xarigga la xiray boqor buurmadow waayo waxa uu galay dembi qaran marka waxaa waajib ah qofkii gala dembi in lasoo taago maxkamadda sharcigana lagu xukumo axmed hoodaar garowe ayuu ka soo qoray waxa uu leeyahay ismadu waxay leeyihiin ixtiraam iyo xushmad waana ka xumahay xarigga iyo maxkamadda hargeysa ee ku xukuntay boqorka xabsigaas waxaanan u arkaa mid cadaaladda ka fog ismaaciil maxamed faarax oo isna burco ka soo qoray waxa uu leeyahay waa ka xumahay xukunka boqorka waayo waa mid lagu degdegay mana uusan gelin dembi intaa la eg markana magaalada muqdisho wakiilka midowda afrika ahna madaxa howlgalka nabad ilaalinta ee amisom ee soomaaliya danjire francisco madera oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in si wanaagsan ay u socdaan qorshaha ciidamada qaranka ee soomaaliya ay kula wareegayaan amniga dalka iyo dhimista ciidamada amisom oo uu sheegay in sanadkan inta uusan dhammaan wadanka laga saari doono 1,000 askari oo kale ambasador madera ayaa waxa uu ku booriyey saaxiibada soomaaliya inay ka qayb qaataan awood dhisidda ciidanka qaranka si ay si buuxda ugula wareegaan amniga dalka wariyaha b b c da magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan oo joogay shirkaas jaraa'id ayaan goor dhoweyd waxa uu iga warramay waxyaabaha uu ka hadlay madaxa amisom faarax shirka jaraa'id ee wakiilka gaarka ah ee midowda afrikaana madaxa howlgalka nabad ilaalinta amisom ee soomaaliya ambasador francisco madera wuxuu kaga hadlay arrimaha ku saabsan dhimista ee ciidamada amisom iyo istiraatiijiyadda ku aadan sida ciidanka qaranka ee soomaaliya ay amniga kula wareegayaan wuxuu sheegay in sanadkii hore 1,000 askari la dhimay bisha oktoobar ee sanadkan aynu ku jirnana sidaasoo kale 1,000 askari oo kale la dhimi doono wuxuu sheegay in ku wareejinta amniga ee dalka ciidamada soomaaliya inay si wanaagsan u socoto mar uu arrintaas ka hadlayeyna danjire ambasador francisco madera waxauu yidhi Last year, our troop numbers were reduced by 1,000 as per the Security Council Resolution 2372. sanadkii hore waxaa ciidamadeenna laga dhimay 1,000 askari si waafaqsan qaraarka golaha ammaanka ee tirsigiisa uu yahay 2372 ka amisom ahaan waxaa naga go'an in dowladda federaalk ee soomaaliya aan si dhow ugala shaqayno in hannaanka ciidan dhimista uu noqdo mid si wanaagsan ku dhaca si looga gaashaanto in kuwa cadowga ku ah nabadda ay ka faa'iidaystaan bixitaanka amisom ayna dhibaato ku noqdaan guulaha ilaa ay hadda la gaaray waxaa muhiim ah in ciidamada soomaaliya ay helaan tababar iyo qalabayn buuxda si ay hawsha ugala wareegaan amisom to take over the mantle from AMISOM. sidoo kale wakiilka midowda afrika ee soomaaliya ahna madaxa amisom waxa uu ka hadlay in ciidamada booliska ee amisom lasoo kordhiyey oo dhowaan ay dalka yimaadeen ciidamo ka socda ee dalka Sierra Leone wuxuu sheegay inay ka qayb qaadanayaan tababaridda ee ciidanka booliska Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan xasilinta iyo amniga magaalooyinka waaweyn iyo sidoo kale deegaanada laga saaro al-shabaab. I'm happy to announce that AMISOM has received an extra 160 police officers from Sierra Leone. waxaan ku faraxsanahay inaan shaaciyo in AMISOM ay soo gaareen 106 askari oo boolis ah oo uu soo diray dalka Sierra Leone dhowaan ayay soo gaareen Soomaaliya waxaana ay caawinayaan booliska Jubbaland waxaan ugu baaqaynaa dalalka kale ee midowda Afrika ka tirsan inay ku daydaan tallaabada wanaagsan ee ay qaaday Sierra Leone oo ay boolis u soo diraan Soomaaliya waxaan carabka ku adkeenayaa in booliska AMISOM ay sii wadi doonaan tababarka ay siiyaan booliska Soomaaliya ee magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo, Baydhabo iyo Beledweyne. For the Somali Police Force in the towns of Mogadishu, Kismaayo, Baidoa and Beledweyne. codkaasna waxa uu ahaa danjire ambasador Francisco Madera oo ah madaxa howlgalka amisom ee Soomaaliya qodobkaasna dadka ra'yigooda Facebook kaga soo dhiibtay waxaa ka mid ah kamas faarax barre oo gaarisa ka soo qoray oo leh hadalka madaxa howlgalka amisom ee ah inay dhimayaan 1,000 askari waan bogaadinaya ayuu yiri waxaan jeclaan lahaa in gabi ahaanba amisom dalka ay isaga baxdo ammaanka dalkana ciidanka qaranku ay la wareegaan laakiin su'aal waxa qaba Maxamuud Warsame oo gabiley ka soo qoray oo leh inkasta oo ay wanaagsan tahay in 1,000 askari la dhimo haddana waxa habboon ayuu yiri in la weydiiyo madaxa amisom imisa askari ayaad sanadkan keenaysaan dalka wahagaag weli dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC
BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. qoysas badan ayaa waxa ay ka qaxeen guryahooda magaalada Gaarisa kadib markii xalay webiga Tana River uu qararka jabsaday. xaafadda Buula Qadiim oo ka mid ah xaafadaha webiga saaran ayaa ka mid ah meelaha ay qoysaska badan ka barakaceen waxaana ilaa iminka ay ku sugan yihiin dugsi hoose dhexe oo ku yaala isla magaalada Gaarisa halkaasoo iminka hooy u ah. si aan haddaba wax badan uga ogaano xaaladda qoysaskaas barakacay ayaa wariyaha BBC-da Bashkas Jug soo dhacay waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dadkaas oo uu ku booqday iskuulka iminka hooyga u ah. meeshaan aan waqtigan ku suganahay waa iskuulka hoose dhexe ee Kazuko Primary School oo ku yaala magaaladan Gaarisa. Horteeda waxaan ku arkaa kumanaan ka tirsan dadka ku nool magaaladan Gaarisa, qaasatan xaafadda loo yaqaan Buula Qadiim oo ku taala agagaarka webiga Tana River. Webigan ayaa xalay soo fatahaaday wixii 8 saac ka bilowday. Dadka waxay danta ku qasabtay inay ka soo guuraan guryahooda oo ay soo degaan iskuulkan. Kumanaan ka tirsan dadka oo degan agagaarka webiga Tana River ayaa xalay oo dhanba soo qaxayn ilaa saakay markuu waaga u bariyay. magacayda samsamaada cabdiyaal idhaa qof curyaan ahay gurigii waa igu dumay ilmihii wax ii soo qaadaan way aniga maal yaqaan mise ilmihii la yaqaan adiga marka biyaha imaadeen maxaa subisay waxaan subinaa ani gaarigaygaas ka kor fuula anoo meesha fadhiya musayga washmeena la doonay musayga imaada aminkaana la soo bixi muslim noo imaada na la soo qaaday oo ilmihii la ii soo bixi meeqa ilmooda aynu gurigaada joog markay biyaha ku soo gaareen alxamdulillah rabbil caalamiin lix unugan qabaa musaygaygan waa washmeen meedii joogin muslim ay soo qaaday asaga la doonay waa la soo bixi gurigaada xaalad sidaas kaga soo tag gurigayga xaalgiis waa bariga dhex guri damban ku noqonayna mala gurigayna waa dhacay biya qaadan gurigayna hataa baatiyalka wax iga soo bixi waan wayne waxaan soo wada dooranay inayna soo garab qabtaan maanta oo ka u baahan berin oo ka noo baahan hooyil inayna garab istaagan meeshaan marka nolosha ka waran meeshaan iskuulkan aad ku suguntiin iskuulka hoose dhexe Kazuko Primary nolosha seeway meeshaan dadkan way ku badan yihiin dadku way ku badan yihiin noloshiisana waa aad u adag tahay wax kasta way naga maqan yahay hataa dhuxusha hataa waan laana dhoorkii dhuxusha ku jilin way meel aan ka raadsan waan laana biya meeshii buuxa meel la maray hataa ma laha waxaan hataa dab ku shidan oo ilmihi dab ku shidan hataa waan arki laan dawladda waxaan ka codsanaynaa inayna soo garab qabato oo hooyihiilana la garab istaago magacayga waxaa leedahay Cusube Maxamed Aadan xalay waxaan soo guuray halka imaadnay 7 saac habeenimo aniga sanadkayga waa 60 jir hooyaday waa yeelo 90 jirtan waan hayaa ilaa xal la soo socday aniga intaas ka kor dhacna wili oo ka jabay wax weel wax dhaamaro ay waxaan haysan ilaahay bar male qundayna kala halka fadhin ayada daarta barteed waa halka fadhida xaaladda meeshaan seeway iskuulkan aad ku suguntiin aan ku sugunaa hal guri baan 10 ruux ama 20 ruux ku dhaw kala ku wada jirnaa suuligu wuu naga fog yahay hadda ilaahay baa maxalka in sheegi karo waxaan sheegnaa ma dhaqaan waa sida tasaakan hadda sabc dib loo bushidan magacayga aadan bil xasan waxaan ahay nin curyaan ah Buula Qadiim degan xalay 9 saac habeenimo ayaa biyo socdo oo yaacaya ayna soo galeen afarta gaar ay naga dhaxmareen ay naga hareerayeen marka waxaan ku tuusanay ma alaabti baad qaadan ma ilmihaas qaadan ma adaa gurguuran arintii baan soo keenay waanay marka aan dad baa soo xambaaray oo afar rag baa soo xambaartay ilmihin dad baa soo bixiyay gurigii alaabtii raashinka wixii ku jiray meesha looga soo tagnay saakayna gurigii asaga laba qol oo kodkoto wahay ugu dumay kuwaasina waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah dadkii ka soo qaxay xaafadda Buula Qadiim ee magaalada Gaarisa oo u waramayay wariyaha BBC-da Bashkas Jug soo dhacay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa waxa lagu wadaa in maanta ay kulmaan kulanka ayaa waxaa la sheegayaa in uu ka dhacayo goobta militariga ka caagan ee ku taalla xuduudda labada dal kulanka oo ah mid taariikhi ah ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa in Mr Kim lagu qanciyo in uu ka tala baxo barnaamijkiisa nukliyeerka Cabdinuur Sheekh Maxamed ayaa warbixinta nooga diyaariyay tuulada ay ku shirayeen labada hogaamiye ee la yidhaahdo Panmunjom waxaa loo bixiyey tuuladii nabadda tuulooyinka kale waa ay ka duwan tahay waxay leedahay dhismayaal leh midabka buluugga ah waxay ahaan jirtay tuulo xiisadii ay ka ogan tahay oo ka tarjumaysa xiriirka labada kuuriya u dhexeeya goobta shirku uu ka dhacayo kama foga dhismihii lagu saxiixay xabad joojintii lagu joojiyey dagaalkii kuuriya 1953 maalinta Jimcaha ah ayaa madaxweyne Moon iyo hogaamiye Kim waxa ay geed ku beeri doonaan aagga militariga ka reeban iyagoo adeegsanaya ciid iyo biyo laga kala keenay labada wadan oo arsaan looga dhigayo nabadda iyo baraaraha mustaqbalka la dabacsan yahay aagga militariga ka cagan ee u dhexeeya labada wadan waxa uu caasimada koonfurta Kuuriya u jiraa 60 kilomitir caasimada waqooyiga Kuuriyana wuxuu u jiraa 130 kilomitir tuulada madaxdu ay ku shirayso waxay ku fadhidaa 800 mitir dhinac walba oo kamid ah labada gees ee militariga ka caganna waxa ku yaala xafiisadii xiriirka labada wadan iyo qolal shirarka waaweyn oo uu ku jiro guriga nabadda oo ay ku shirayaan labada hogaamiye sida uu sheegay madaxa xafiiska madaxweynaha koonfurta Kuuriya Im Jong Song hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi oo safarka ay ku weheliyaan saraakiil
militari iyo walaashii oo iyaduna ku jirta madaxda sare ee xisbiga shuuciga ah ayaa waxa uu sheegay in hogaamiye King ay ka go'an tahay horumar in laga sameeyo dhowr qodob oo muhiim ah. 그리고 군의 핵심 책임자들이 참석한 것은 역시 waxa aan aaminsanahay in Kuuriyada Waqooyi ay saraakiil militari oo muhiima ay u soo diri doonaan shirmadaxeedka iyagoo sidoo kale aaminsan in la baabi'iyo hubka nukliyeerka si loo hirgeliyo nabad waarta isla markaasina loo dabciyo xiisadda kala dhaxaysa koonfurta taas oo ah mid muhiim ah. 중요하게 다뤄지기 때문에 수행원의 waxaa kaloo lagu wadaa inay ka mid noqoto qodobada lagu wado madaxdu inay ka wada hadlaan aagga militariga ka caagan oo ay ku aasan yihiin miinooyin qaarkood halkaasi ay ku jiraan sannado fara badan oo tiradooda guud lagu qiyaasayo inay ku dhow yihiin 1 milyuun oo miino oo kala noocnooca sida uu sheegay urur fadhigiisu yahay magaalada Geneva oo dusha kala socda miinooyinka caalamka. waxaa kaloo iyana muhiima sidii loo dhimi lahaa ciidamada faraha badan ee dhooban xadka labada wadan si iyana loo yareeyo xiisadda oo aakhirkana uu u hirgalo heshiis nabadeed oo dhex mara labada Kuuriya. cabdinuur aadayu u mahadsan yahay dadka qodobkaas Facebook ra'yigooda kaga soo dhiibtay waxaa ka mid ah cabdi geesi oole waxay ila tahay in labada Kuuriya kulankooda uu ka soo bixi doono is-afgarad sabab u noqdo isu soo dhawaansho qoto dheer oo labada dal ay ku baraaraan waayo Kuuriyada Waqooyi ayaa hadda danaynaysa in caalamka ay la jaanqaado oo dhufayska hubaysan ay ka baxdo ayuu yiri. maxamed amiin ayaasna waxa uu leeyahay shirka la wada sugayo ee u dhaxeeya labada Kuuriya waxa weeye mid cadeyn u ah in Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed uu xiriirkoodu soo wanaagsanaanayo oo ay ilaaween colaadii gaamurtay ee kala dhex taalay. weli halkaad nagala socotaan dhegaystayaal oo laanta af Soomaaliga ee BBC goordhowna waxa aad maqli doontaan wararkii ciyaaraha. kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba. barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqaliya muuqaalba leh. warbixinnadii ugu dambeeyey waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan. ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco moobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com. wahagaag dhegaystayaal markana wararka ciyaaraha aanu u galnay tababaraha shaqada ka tagaya ee kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa waxa uu sheegay inuusan isagu lahayn go'aanka ah xilliga uu shaqada ka tagayo. galinkii dambe ee Arbacada ayuu arrintan soo shaac bixiyay laakiinse waxa uu sheegay inuusan dhib ku qabin maadaama go'aankaas uu gaaray naadiga. mar wax laga weydiiyey in Luis Enrique uu bedeli doono ayaa waxa uu yiri ma rabo inaan saameyn ku yeesho macalinka soo socda laakiinse dabcan fikrad sare ayaan ka qabaa Luis Enrique. Real Madridna xalay waxaa garoonkooda Allianz Arena ee magaalada Munich ay ku dubatay kooxda Bayern Munich oo ay 2-1 uga badisay ciyaar ka tirsanayd semifinalka koobka Champions League. caawana 2 ciyaarood oo semifinalka Europa League ayaa jira. Arsenal waxaa garoonkeeda Emirates ee waqooyiga London ay ku martigelinaysaa Atletico Madrid. kooxda ka dhisan koonfurta Faransiiska ee Marseille waxa ay iyana martigelin doontaa kooxda reer Austria ee RB Salzburg la yiraahdo. labada ciyaaroodna waxa ay soo geli doonaan Afrikada Bari saacadu marka ay tahay 9:45 daqiiqo. idaacadaheenna iyo bbcsomali.com ayaanad mar walba kala socon kartaan. markana ku soo dhawaada baafinta maanta waxaa si wada jir ah stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Samiira Cabdulaahi Jaamac iyo Caasha Saciid Xasan. Caasha mahadsanid Samiira. hooyo Aamina Xasan Xuseen waxay baafinaysaa wiilkeeda oo 8 jir ah aadan siidow. waxaa ugu wardambeysay bishii 2 ee sanadkan 2008. wuxuu xirnaa markii ugu wardambeysay funaanad jaallo ah iyo surwaal guduudan oo gaaban. haddaba haddii ay jirto cid aragtay fadlan waxaad ku soo hagaajisaan xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama telefoon lambarka hooyo Aamina Xasan Xuseen eber 6788952 aan ku celiyo eber 6788952. sidoo kale hooyo wehliyo Cali Mataan iyadan waxay baafinaysaa wiilkeeda oo 8 jir ah Jaabir Ibraahim Khayre. Jaabir waxa ugu wardambeysay 25 Febraayo ee sanadkan. waa wiil yaroo madow ilkaha hoosala wuxuuna xirnaa shaati cad iyo surwaal gaaban oo madow. haddaba haddii aad aragtay amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo
hooyo weheliye cali mataan. luul xasan barqadle oo joogta wisil waxay baafinaysaa mahad xasan barqadle waxaa ugu dambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2012 hadaba haddii uu maqlayo mahad xasan barqadle amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo luul xasan barqadle iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. nageeye abshir aadan oo jooga wisil waxa uu baafinayaa faynuus abshir aadan waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 2012 hadaba haddii ay maqlayso faynuus abshir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo nageeye abshir iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. axmed cabdi kulane oo jooga wisil waxa uu baafinayaa mahad cabdi kulane waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan dalka Talyaaniga sanadii 2010 hadaba haddii uu maqlayo mahad cabdi kulane amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo axmed cabdi kulane iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. farxiyo siyaad geedi oo joogto wisil waxay baafinaysaa maymuuna siyaad waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan Tunisia 2000 hadaba haddii ay maqlayso maymuuna siyaad amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo farxiyo siyaad iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. mahad aadan cumar oo jooga wisil waxa uu baafinayaa farxiyo aadan cumar waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2002 hadaba haddii ay maqlayso farxiyo aadan cumar amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo mahad aadan cumar iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. xirsi cabdi rooble oo jooga wisil waxa uu baafinayaa nasra cabdi rooble waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan dalka Talyaaniga 2004 hadaba haddii ay maqlayso nasra cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo xirsi cabdi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. najmo xuseen cali oo joogta wisil waxay baafinaysaa ardo xuseen cali waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2000 hadaba haddii ay maqlayso ardo xuseen cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo najmo xuseen cali iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil amaba telefoonka nambarkiisu yahay 25255599. maxamed aadan faarax oo jooga wisil waxa uu baafinayaa Leila aadan faarax waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 2012 hadaba haddii ay maqlayso Leila amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo maxamed aadan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. nayruus abshir muuse oo joogta wisil waxay baafinaysaa maxamed abshir muuse waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan dalka Masar sanadii 2005 hadaba haddii uu maqlayo maxamed abshir muuse amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo nayruus abshir muuse iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. leila maxamed salaad oo joogto wisil waxay baafinaysaa hani maxamed salaad waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan dalka Faransiiska 1997 hadaba haddii ay maqlayso hani maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo leila maxamed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. hidaaye cali aadan oo joogta wisil waxay baafinaysaa Leila cali aadan waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan dalka Suudaan sanadii 2010 hadaba haddii ay maqlayso Leila cali aadan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo hidaaye cali aadan iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. hibaaq cabdi shire oo joogta wisil waxay baafinaysaa cabaas cabdi shire waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan jigjiga 2007 hadaba haddii uu maqlayo cabaas cabdi shire amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo hibaaq cabdi shire iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. nayruus cabdi jaamac oo joogta wisil waxay baafinaysaa salaad cabdi jaamac waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2004 hadaba haddii uu maqlayo salaad cabdi jaamac amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo nayruus cabdi jaamac iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. nageeye axmed cumar oo jooga wisil waxa uu baafinayaa maryan axmed cumar waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan Addis Ababa 2010 hadaba haddii ay maqlayso maryan axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo nageeye axmed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. falastiin xasan yuusuf oo joogta wisil waxay baafinaysaa yuusuf xasan yuusuf waxa ugu dambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2001 hadaba haddii uu maqlayo yuusuf xasan yuusuf amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo falastiin xasan yuusuf iyadoo wixii wara loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. abshir yuusuf cali oo jooga isla wisil waxa uu baafinayaa amran yuusuf cali waxa ugu dambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya hadaba haddii ay maqlayso amran amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo abshir yuusuf iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil.
faysal axmed siyaad oo jooga wisil waxa uu baafinayaa siyaad axmed raage waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka itoobiya sanadii 2012 haddaba haddii uuna maqlayay siyaad axmed raage amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo faysal axmed siyaad iyadoo wixii waraa loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. najmo maxamed abshir oo joogto wisil waxay baafinaysaa xasan maxamed abshir waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan nairobi 2002 haddaba haddii uuna maqlayo xasan maxamed amaba ay jirto cid garanayso fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo najmo maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. mustafa cabdi cali oo jooga wisil waxa uu baafinayaa hanad cabdi cali waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalkani Kenya sanadii 2007 haddaba haddii uuna maqlayo hanad cabdi cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo mustafa cabdi cali iyadoo wixii waraa loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. maxamed siciid afrax oo joogo hoobiyo waxa uu baafinayaa xalimo siciid afrax waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2012 haddaba haddii ayna maqlayso xalimo siciid amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo maxamed siciid iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay hoobiyo. luul xasan barqadle oo joogto wisil waxa ay baafinaysaa mahad xasan barqadle waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2012 haddaba haddii uuna maqlayo mahad xasan barqadle amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo luul xasan barqadle iyadoo wixii waraa loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2529741214. nageeye nuur warsame oo jooga hobyo waxa uu baafinayaa hani nuur warsame waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 2007 haddaba haddii ayna maqlayso hani nuur amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo nageeye nuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay hobyo. xasan cumar muude oo jooga hobyo waxa uu baafinayaa aadan kudow cali waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan hargeysa sanadii 1998 haddaba haddii uuna maqlayo aadan kudow cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xasan cumar muude iyadoo wixii waraa loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil amaba telefoonka nambarkiisu yahay 25264737 xaawo salaad cusmaan oo joogto wisil waxay baafinaysaa raage salaad cusmaan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Nairobi 2012 haddaba haddii uuna maqlayo raage salaad amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xaawo salaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. xalwo xasan maxamuud oo joogto hobyo waxa ay baafinaysaa xafso cabdi abshir waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2015 haddaba haddii ayna maqlayso xafso cabdi abshir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo xalwo xasan maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. hani yaxye rooble oo joogto wisil waxay baafinaysaa xaawo xaashi nuur waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Talyaaniga 2010 haddaba haddii ayna maqlayso xaawo xaashi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo hani yaxye iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. faysal axmed cali oo jooga wisil waxa uu baafinayaa yaasiin axmed cali waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalkani Kenya sanadii 2010 haddaba haddii uuna maqlayo yaasiin axmed cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo faysal axmed cali iyadoo wixii waraa loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. nadiifo xirsi shire oo joogto isla wisil waxay baafinaysaa duraan xirsi shire waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Turkiga 2005 haddaba haddii uuna maqlayo duraan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo nadiifo xirsi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. baafinta ugu dambeysana waxay naga soo gaartay yaasmiin cabdi aadan oo joogto wisil waxa ay baafinaysaa mahad cabdi aadan waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2007 haddaba haddii uuna maqlayo mahad cabdi aadan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo yaasmiin cabdi aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin kara xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil amaba telefoonka nambarkiisu yahay 252647 baafintina maanta waa naga intaa. wahagaag dhegeystayaal baafintaasna waxa ay u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo waxaa isku soo dubariday axmed beder anigoo faarax lamaanaha ayaana idinla socodsiinayay dib waxaanu kulmi doonnaa haddii uu eebbe idmo galabta saacadda afrikada bari marka ay tahay 5 galabnimo inta ka horeysana wararkeenna waxaad kala sii socon kartaan facebookga iyo barta internetka ee bbcsomali.com.